qof wiilkaaga haddii la dilo ama walaalkaa la dilo inta baxda soo aari ma kartid ciidanka u dacwoonaya dacwa ku furan inaad dacwootaan rabaa ood u dacwootay ragga meeshaan uga tagayno u dacwootaan oo tiraahdaan nimankan walaalkay hebel hebela la dili meeshaasaan lagu dila tiraahdaan maalmahan dhammaan aaday baalan joogno hadda adeerkan iyo dad badan lamida waa is aragnaa kooxaha hadda uji aqaan aaday baal waxaan uga hadalnay inaa nabadda la taageero oo kuwa nabad darada wada amni darada wada laga hor istaago maqakuriyaan tagnay sidaasoo kale tardaan maanta dham joognay maanta saaka shirkaan galna hadda ka soo baxan niman odayaalaha iyagan la hadlayno sidaan oo kale dhammaantood waxay sheegeen inay nabadda diyaar u yihiin dowladdana taladeeda ay qaateen nabadda marka ay dowlad waddo iyo marka ay oday u wadana way kala duwan tahay oday maamul uu kaashadaa iyo dowladda mogtahay kaligiisa warqado uu qoray qof laguma dilo lagumana xiree mogtahay oday waxaa la yidhi maamul uu kaashadaa yaxaasna biyuu kaashadaha la yidhi odayaashaasi waa u sheegnay waxayna boqolkiiba 200 qaateen inay nabaddana diyaar u yihiin wax badan oo iyaga dhinacooda jirana ay rabaan inay ka xaajeeyaan ay diyaar u yihiin inay u tagaan walaalahood inta marka waxaa u nimid maba ahan maxaa la yidhahdaa haddaan wax kasta afjaraynaa maaha horta idinka inaa dadkii maqnaay aad u sheegtaan inay dowladdu timid nabadna wado nabadda dowladda ikhtiyaar maaha wax dhexda yaalana maaha waxaan keennay ciidan waddada hadda la sheego waa xirantaa la leeyahay ciidankaasaa ka shaqaynayo oo ka howlgelayo ciidan oo dowladdu leedahay ayaa ka howlgelaya haddii shaksi u xiran tahay haddii qabiil u xiran tahay haddii qofka waddada istaago ciidanka u istaago ayaa iyo asagaa is arki doonaan dadka kuwii hore dembiyada u galay xataa maaha macnaheedu in annaga asaas looga haraayo laakiin dadka reeraha oo meelaha wada degan oo deegaankan wada degan siduu sheegay gudoomiyaha degmada uu dhahay deegaankan labada reer ba isticmaalayeen ceelasha iyo isticmaalayeen la dhahay inay dadka isku wada socdaan aan rabnaa kuwiina ciidankaana ku amran inay raadiyaan ay soo qabtaan waxaase ciidana dhinac socdo in dadku isku burcad ismarsadaan oo sida idinka inaad isku raadsataan aad diyaar u tihiin raggaas way soo raadsadeen diyaarayna yihiin inaa idinkane israadsataan oo ballantiina qabataan ballantaas sheegteen haddaa qabataan waxaa ka shaqaynaya saraakiil ciidan dowladeeda ka shaqaynaya meeshaan amniga in la sugo qof la weydiihaya ma leh kii shalay wax dilay habeen horaad wax dilay iyo kii bil ka hor wax dilane labadaba waa lagu raad joogaa ciidankaana raadinaya laakiin intaas kaliya dowladdu kaliya kuma filna waxay rabaan dadka deriska ah inay isku gudbaan al rabaa meeshaan kacdoona ka dilaacay niman khawaarij leedo shababaha laga eriyey ujeedkuna wuxuu ahay dadku inuu wada noolaado nabad ku noolaado oo nabad fiican la gaaro dadku inuu isku socdo ganacsado waa la hubaa dad inta fadhiya in ganacsigooda dadkaas deriska ah qaar ka mid uga xiran yahay oo wax xaga kaga maqan yihiin waxaasi inay isla wada socdaan oo hal dhinac u socdo oo dadku isku calaadda nima laga sheego wax nin weyn uu sheego iyo wax dad akhyaar lagu maamahama dhamee nima laga sheegay gabartaada wax la haaliyo uur leh asoo warkiyaa ku batay magaalada markii ceelku inta keenyo garasha ka furay asoo markii la yiri fiiriye yiri waa tan fiiriye asoo ina uur leedahay in kale ma laha la yiri tubta ha qaado uur leedahay gabarta hadda waxaa la rabaa dadka idinka dambeeyo colaad ma jirto nabad tubta ha qaado dadkii aad alla sheego dawlad timid ciidana yimid nabad qof la dilay iyo qof la tagtagay mark si colaadda tubta marka hore uga timid iyo tubtaasna uga timid waa u soo sheegay dadka tubta ha qaada dhahnay nabad tubta ha qaado dadkii idinka dambeeyo hadda waxa koowaad loo sheegay nabadaa dhalatay ciidana yimid dadkii walaalahan ahayo nala degnayni waxay diyaar u yihiin inay nala macaamilaan nala fariistaan waqtiga iyo goobtana idinka sheegaysiin marka ma rabno anaga in la isjoogo ma rabno xaggaasi adeerada waxa halkaas markaan joogay uu sheegayna nabadda hadhowdi wixii ciidamadu sameeyaan inaan la dhihniyo anaga naftigeena dawladdu nagu tiirsantaa qof hadii la dilo hadda kadib sidoo sheegay idoo la ballamaada dili karaa ilaa nin oo tifoto taawada kaaga rida weymay sida moogta idoo la ballamaan dili karaa qof dili karaa qof wiilkaaga hadii la dilo ama walaalkaa la dilo inta baxda soo aari ma kartid ciidanka u dacwoonaya dacwa ku furan inaad dacwootaan rabaa oo u dacwootay ragga meeshaan uga tagayno u dacwootaan oo tiraahdaan nimankan walaalkay hebel hebela la dilay meeshaasaan lagu dilay tiraahdaan ciidanku inay dharka inta ka daba gashtaan ay raadiyaan
iyagaa ku qasbano wax kaleba inta muu joogno 5 maalin shaqo wax kastoo ninkaasi lagu heli karo oo nidaam ah oo meeshan ka soconaya inay sameeyaan ciidanka iyagaa laga rabaa iyagaa la rabaa inay dadkii gacan ku sii soo gabagabeeyaan iyagaa la rabaa kii inay soo qabtaan hadduu qabiil u toogtay iyo qabiil dadkii u dilana waa la arki doonaa qabiilkiisa dhexdiisa lagu dhex tooganaa qofkaasi qisaastaan jidaynaynaa diinteenaa qabto qisaastu nolosha dadka dambe nolol u tahay kuwii hore saas looga hari maayo waa la daba soconaa kan hadda kadib dad dilo hadduu walaalkaa dad dila xataa gurigaaga joog hadduu walaalkaa xagga qofka soo dila xataa adiga gurigaaga waa joogi kartaa ciidanka amniga ka shaqeeyhaya waxaa taa cagsigeeda haddaa adiga wiilkaaga qof soo dilo ama walaalkaaga qof soo dilo gadaal ha gashanin haddaa gadaal gashatid oo dhinaca gadaashaada oo mara qofka ciidanku wuxuu amriyay horta qofka gadaal marsada horta inuu talaab ka qaado kadib uu ninka raadiyo dacwaa furan dadku ha dacwoodaan wadadan iyo wada kasto iyo ceel kasto dhinaca kale ku yaalo iyo suuq kasto dhinaca kale ku yaalo in la tago ciidamaan u xil saarne saraakiilaa taqaaniin dawladda ka socoto dhinacyada ka socoto oo wada joogto oo wada howlgelayso oo ninkii qalad sameeyay daba ordayso ayaan diyaarinay waxa laydinka raba maanta in laydin ogeysiiyo duqeyduna ay nala qaado qaraabaduna nala qaado waxaa waaye inay wadadan nabadii qaado oo dadkii inta loo sheego nabadaa la qaatay hadaa dadishid meeshaana lagu dhex dilaya qoorta dilha geysan la dhaho qof wakiilkaaga ah dilka ma jiro hadda meeshaas marka la joogo habeen horaatina la dili ninka nin la dhashaa fariin loo diray waxaa la yidhi warniyo ma ciddi kalaa nin ka weysay fariintii minaan fiirinay oo lambarka laga soo diraayo baarnay ninka dhahaya qabiilka waxbaa la dila dhahaya waa nin shabaabka jiro oo inta aana joogin shabaab dhex jooga waa oo dhahayo dadkii kale waa ka qabriga ka soo hadlaahay ma qofaad ka weysay reerkii kale marka aniga qabriga aan ku jiraayo ninkii dhinto uu hadluuhayo ma nin inta qabri ka soo hadlo ninkii dhinta ma qabri ka soo hadlo ma nin inta qabri ka soo hadlo quruunta nink weliba xataa kaaga daranka xataa deegaankaas maaha ninkaasi deegaan ahaan deegaankan u dhashay ninka saas u qorayo shabaabka ah oo dhahaya ninka cidayda kaala ka soo aar ninkaas ugu sheekeeyay in deegaankan u dhashay u ahay magaciisaan baarnay waxaan ogaanay magaciisa saddexan nin reer ahaan ugu difaaca wax kale ka marabi in talas dildilo wixii meeshii lagu kala guuro rabaa oo ganacsigan iyo ceelkan iyo waxaan socdo awoyaashana inta ku jiro looga sheekay jiray ninkii dadkii hore markay dhintaan haddana loo aarin qabuurtay ka soo hadli jireen haddii ajashada timaada ha leegu aaro ontorow oo iilka iyo ciilla aala weyna dhihi jireen waxba kama jiraan ninkii dhinto asaa tiis haysataa camalkiisa horyaal xaa hebel u dishay xaasaas u yeeshay yaa weydiiyay qabiilkiisa iyo magaciisa dambe yaa weydiiyay qofka wuxuu haystay camalkiisa horyaal waa been qof qabri ka soo hadlo kuwaasna oo soo sheegay idinkana waxa la rabaa in la ogaado warka markii colaada jirtane beentu waa badan tahay aad u faaftaa habeelaa la dilay xagga la dilay hadda mida saraakiisha noo sheegaysanina la dilay dhaheeno oo islaana inta soo wacdo dhinaca naga jirto ayaa wixii soo tiri hebelaa la dilay hebelkii la raadiyay asoo gurigiis jiifaa loo tegey arri adiga waa dhimatana loo soo sheegay oo nooloo loo tegey markii colaaduhu jiraan dhibaatadu iyo xumaantu iyo waxa in wax la sheego aaminaaduna waa badan tahay weliba ilaan qof la dilay mogtahay in waxa xumaanta la aaminaa badan in samaanta la aaminaa aad u yar oo haddii la yiraahdo hebel la dilo marka qaraaboy waxaan rabnaa waa ogolnahay inay dadku inta israadsadaan inta talada ka go'do oo wanaaga u socoto inay inta isku yimaadaan ee balan inta qabsadaan dadkii kala fariistaan sababtoo ah dawladdu kaliya kuma filna dadku inay isku gudbaan oo is aaminaan la rabaa dawladdu waxay ninkii hala raadiyo qofkii wax dilay ay dhihi kartaa ama ay soo qaban kartaa laakiin dadkan iga isqaana iga isdhala iga ehel ah inay isku isdoontaan oo dadkii duqeyda ahaayo ka tali jiray ay ka taliyaan waa soo dhaweynaynaa waana raacsannahay talada ah in aad intis doonataan waqti qabataan waqtiga inaad hadda qabataan rabnaa oo saraakiishu ay suuro geliso in dadkii isku yimaadaan si nabad isku yimaadaan haddii aan inta ka naqano idoo la heshiiyey oo sidaan si ka fiican ay tahay inaan imaanaan rabnaa ujeedkanaguna waa fahmay ogaasimaha iyo oda cali iyo dagaal shaqo kale oo ka badan shaqadana inta in laga qabto la rabaa dagaallo iyo in la galal rabaa waxaan yar ka ah oo qaraabada iyo dadka dhexmar is yaqaano ninka dadka isdaba yaqaano gurigaaga iyo santaada yaqaano isku hayaan inay meesha ka baxaan rabnaa shaqo ka badan shaqadan ka duwana inaan ka qabanno magaaladan aan rabnaa dadkii odagan waa taqaanaan oda cali dadkii shabaabka ila diriray waay dadkan hadda laga waxyaabaha yarka dhex mareen dadka inuu jiheeyo aan rabno waayo oo dhinac kale u jiheeyo aan rabno waayo aada umaasantihiin go'aan dalabkeenu waxaa waaye waqtigii inaad qabataan dalab codsigiinna waa laydinka yeela oo ah inaad isdoonataan arrintan nabaddana arrin dhexda taala maaha nabaddu waxaa la yidhahdaa waa dogob laysla sido qofka kan hadduu sido kaasna dhac ka wadan waa isku dayhaysiin waayo dogob in layska sido waayo godobtuna
وواحد ضدك كلام مغنيسي قضب صورة كاد مرتبط وعصابك وقرصون نبضنا صحيح هذا أوسيته ونواعي هذا ما سنتين